بسم الله waxaan ugu horeyn u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta dawladda federaalka Soomaaliya oo runtii muuqato sida uu iskugu xiray uga shaqeeyay waa maamul goboleedyada wasaaradooda howlaha guud wasiiradooda inuu is dhexgeliyo shaqadii mideeyo oo runtii wax weyn ka qabto runtii aad uga mahadcelinaa waxaan kale u mahadcelinaa howlwadeenada wasaaradda howlaha guud oo runtii inoo suura geliyay shirkan quruxda badan maanta inuu noo qabsoomay si fiican inoogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho waxaan kale u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta iyo howlwadeenada African Development Bank oo ayagana kaalin mug leh ka qaatay hawshan maanta quruxda badan ay noo qabsoontay runtii maanta waxaan ka hadlaynay 4 maalin oo ugu dambeysay shirkii kan ka horeeyay wuxuu ku qabsoomay magaalada Garowe kanna maanta wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho runtii waxa uga hadlaynay dhismooyinka wadooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya waxa ugu muhiimsanaa 4 wado oo wadooyinka isku xiro baladweyne ilaa iyo Kalkacyo ilaa iyo Garowe Kalkacyo ilaa iyo Hobyo iyo wadada u dhaxayso Luuq iyo Doolow oo runtii aad muhiim aydan u ahayd ka kalmudug ahaan runtii muhiimad aad u weyn inoogu fadhidaa in mashaariic sidaan u waaweyn laga fuliyo deegaanada kalmudug sidaan ognahay haddadaan waxa dhismo ku socota oo lagu bilaabi rabaa mar dhow hadii Ilaahay yiraahdo dekedii Hobyo runtii hadii Hobyo dekedii la helo waxa loo baahanaa laga maarmaan noqonayso in la helo jidad looga shaqeeyo waxaan kaloo runtii reer galmudug sida uga baranay aan kula dardaarmay inay aad u soo dhaweeyaan mashruucan deegaanada ay ka qayb qaataan runtii iskuna diyaariyaan in ay aad u soo dhaweeyaan qaybtooda ka qaataan waxaan kaloo la dardaarmay deegaanada kale ee runtii ay kana laga fuli doono mashaariicdan waaweyn in iyagana ay kaalintooda qaataan soo dhaweeyaan aadaan u maasantiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh